Sidee loogu biiraa Apple Public Beta Program? Apple Beta Program waxa weeye software ku meel gaar ah oo wali shaqo ku socoto. Marka dad ku biirto programkan waxaad fursad u helaysaa inaad isticmaasho software-rada cusub inta aanan dadka loo soo bandhigin. Tusaale ahaan, iOS 15 iyo iPadOS 15 wali looma soo bandhigin dadka dhan, laakiin haddii aad programkan ku biirto waad si isticmaali kartaa ilaa ay public ka noqonayaan. Markasta xasuusnow laguma shubo telefoonkaaga ku khaaska ah ee waxa lagu shubaa telefoon kale oo gooni ah. Okay, maanta programkan waxaan ku tijaabin doonaa iPad-ka. Marka wadada hadda aan marayo oo u isticmaalayo iPad-kan ayaad iPhone-kan u isticmaali kartaa oo waa isku wada step. Okay, aan bilowno marka. Si aan ugu biirno programka waxaan u baahanahay inaan booqano website-kan. Marka fur browser-kaaga, Safari camal ayaad furaysaa, waxaad leedahay beta.apple.com. kadibna waxaad leedahay inta. Halka marka waa bogga looga biiro oo waad aragtaa Apple Beta Software Program. Marka boggan wuxuu ku sharaxayaa waxa ay yihiin, waxa ay beta programta yihiin. Laakiin waxaan muhiimada saari doonaa iOS 15 iyo iPadOS 15. Laakiin markaas kugulama talinayo inaad saddexdan tijaabiso. Waayo haddii aad mar ku shubto kama laaban kartid. Laakiin iOS 15 iyo iPadOS 15 waxay ku fiican yihiin. Markasta waad ka laaban kartaa version oo waad ka bixi kartaa beta programka oo ku laaban kartaa software-ka caadiga ah. Okay, hadda marka si aan ugu biirno programka waxaan leenahay sign up. kadibna boggan ayuu ku keenayaa. Haddii marka iPad-kaaga iyo iPhone-kaaga ay Apple ID-ga kugu xiriirsan yahay, boggan ayaa kuu soo baxayo. kadibna waxaad oran kartaa continue, ama haddii aadan ku qanacsanayn oo doonaynin inaad maaragtay Apple ID-gan ku furtan waxaad dhihi kartaa use a different Apple ID. marka hadda maadaama aan doonay in Apple ID-gayga saxda ah ku furto waxaan leeyahay continue. kadibna wuxuu weydiinayaa Face ID-ga. hadduusan telefoonkaagu Face ID lahayn wuxuu ku weydiinayaa PIN. kadibna wuxuu ku leeyahay akhriso agreement-gan heshiiskan aad la galayso, maxaa yeelay maadaama uu software-kan uu beta uu yahay uusan diyaarsaneyn, haddii wax cilad ku timaado telefoonkaaga ayagu mas'uul kama noqonayaan. kadib markaad akhrisato fahanto oo dhamaysato waxaad leedahay accept. kadib waxaan dooranaynaa programka u baahanahay. marka hadda maadaama aan iPad ku shubayo waxaan leeyahay iPadOS. kadibna hoos ayaan u baxaynaa, waxaan tegaynaa halka ay ku qoran tahay get started. halkaana marka waxaan ka raadinaynaa enroll your iPad, yacni diiwaangeli iPad-kaaga. halkaan ku dhufanaynaa marka. halka marka waa aragtaa enroll your device to get public beta software. taasoo macnaheedu yahay diiwaangeli aaladaada si aad u hesho public beta software-ka. marka halka marka waa aragtaa number 1 wuxuu kugula talinayaa inaad backup samaysato. kadibna waan ka gudbayaa waxaan u gudbayaa number 2 halkaan oo ka download gareyn karsan karo profile-ka. marka halkaas waxaan ku dhufanaynaa download profile. halkaan marka wuxuu ku weydiinayaa inaad aqbasho downloading-ka. waxaad leedahay marka allow. kadibna waad aragtaa wuxuu ku leeyahay profile downloaded, yacni profile-kii waa lagu soo dejiyay. kadibna waxaan leenahay close. halkaan markaa maraysa iska xir Safariga, kadibna tag setting-ka. setting markaa tagto ku dhufo general. kadibna waxaad tagaysaa profile. xasuusna waxaan soo download gareyn wuxuu ahaa profile. marka waxaan tagaynaa profile-kan tagaynaa. oo waad aragtaa wuxuu ku leeyahay iOS 15 iyo iPadOS 15. marka iOS 15 iyo iPadOS 15 waa isku system. halkaana marka ku dhufanaynaa. kadibna waxaan leenahay install. kadib wuxuu ku weydiinayaa inaad PIN-kaaga geliso. xasuusno markaan Face ID ma aha, waa qasbantaa inaad PIN-kaaga geliso. kadibna waxaan leenahay install. mar kale haddana waxaan leenahay install. halka marka wuxuu ku weydiinayaa inaad iPad-kaaga ama telefoonkaaga restart ku samayso, oo yacni aad damiso dadana darto. marka waxaan leenahay restart. kadibna wuu darmayaa oo PIN-kaaga ayuu ku weydiinayaa. PIN-kaaga ayaad gelinaysaa. kadibna mar kale waxaan ku laabanaynaa setting-ka. markaan waxaan tegaynaa marka general ayaan tegaynaa. kadibna waxaan tegaynaa software update. waa aragtaa marka halkaan uu soo qabtay wuxuu ku leeyahay iPadOS 15 public beta 4. lambarkan markas wuu isbedelaa oo maxaa la yiraahdaa hadda waxaan u marayaa naqshadii afraad. markastay wax ku soo biiriyaan ama wax ka bedelaan lambarka uu isbedelayaa. marka download-ku uu bilaabay waad aragtaa hadda waxa ka dhiman ilaa 6 daqiiqo. markuu buuxsamo ayaan soo laaban doonaa. markuu download-ka dhameeyo uu damayaa. kadibna waxa ku soo baxay boggan oo salaanta ah oo hello camal ah. kadibna kor ayaad isku web gareynaysaa. wuxuuna ku weydiin doonaa inaad PIN-kaaga geliso. kadibna PIN-kaan gelinaynaa. marka PIN geliso marka waa aragtaa wuxuu ku leeyahay software update complete. taasoo macnaheedu yahay update-ku waa dhameysay. iPad-kaagana waxaa lagu update gareeyay iPadOS 15. kadibna waxaan leenahay continue. kadibna mar kale ayuu haddana ku dhihi doonaa heshiiska aqbal. waad akhrin kartaa mar kale hadda u baahato. kadibna waxaan leenahay agree. haddana mar kale ayaan waxaan leenahay agree. kadibna halkan wuxuu ku weydiinayaa inaad Apple Pay setup garaysato. haddii aad doonayso inaad barato sida Apple Pay loo setup gareeyo ama loo isticmaalo, 10 ayaan ka sameynay. halka kore ku dhufo. kadibna waxaan leenahay setup later in settings.
sidoo kale wuxuu ku weydiinayaa analytic marka waxaan leenahay continue kadibna waxaan leenahay don't share halkan waa aragtay marka wuxuu ku leeyahay welcome to iPad sidaas ayaadna iOS 15 ku haysataa sidaasna waxaad ku baratay sida loogu biiro Apple Beta program fadlan wixii su'aalo ah comment-ga noogu soo qor